baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ayaa la tilmaamay in hal kulan ay ku ansixiyeen laba hindisa sharciyeed halka hal kulan lagu soo afmeeray kal fadhigii afaraad ee baarlamaankaasi. arrinkaas ayaa hadalhayn waxa ay ka abuurtay baraha bulshada iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan, gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hirshabelle. iminka qadka taleefanka waxaa si toos ah ugu jira xildhibaan Daqare oo qayb ka ah xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle. xildhibaan marka hore ku soo dhawow Som News TV ee arrinkan hadalhaynta ka abuuray goobaha ay ku kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan sidee buu ku yimi? waxayaa ka bilaabanayaan isdii kala maxaa yeelay cutubkeena aeroosaarka cutubka shanaad ee kalfadhiyada ka hadlo qodobkiisa 20aad wuxuu sheegayaa si waafaqsan qodobka 37aad ee dastuurka dowladgoboleedka Hirshabelle golo wuxuu yeelan karaa kalfadhiyo iyo fadhiyaan caadi ahayd. golaha shacabku wuxuu sanadkiiba laba kalfadhiyo oo caadi ah iyo mid aan caadi ahayn. kalfadhi kastana baarlamaanka wuxuu soconayaa muddo 4 bilood oo xiriir ah ayaa ku qoran. marka ma aha waxaan toban kamid ayaa beelgaroolid maxaa yeelay maalinta ciidahay ayaa lagu ballamay 3 maalmood in la xiriirto, kadibna muddo 42 maalmood ayaa baarlamaanku wuxuu eegaa sababo kala duwan. waxaan filaynay in waqtigii beelgaroolid dib loogu daro, taasi waa su-aal taagan. midda labaad oo ah xiritaanka shalay oo su-aalo badan ka taagan yihiin maxaa yeelay waqtigii lagu dari lahaa iska dhaafay kii kaloo caadiga ahaa aan waqtigii saba gaarin. kulay go-aan ay qaateen gudooga baarlamaanka ayay ahayd. midda labaad ka fadhigii hadda annaga dhammaaday waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ahaa ajendaheena wuxuu ahaa la xisaabtanka xukuumadda. wasiir ayaa la xisaabtanay. waqtigii urmay darteed ayaa wasiirada kale ay meesha ugu baxeen. xiritaanka shalayna waxay ahayd mid waqtigeedii aan weli la gaarin. waxaan isleeyahay taasi waxay ku timid go-aano ay ka qaateen gudooga. waa gartay, laakiin arrimaha baarlamaanka qaybta aad ka tahay lagu eedeynayo waxaa qayb ka ah in sida iminka aad ka dhawaajisayba kalfadhigii afraad ee ay lahaayeen waqtigiisii oo aan la gaarin la soo xiray. arrimahaasi waxaa la tilmaamayaa inay jiraan in xubno ka tirsan amaba baarlamaanka Hirshabelle guud ahaanba ay qaateen lacago taasna ay soo dedejisay in fasaxa la galo. arrintaas ma jirtaa? arrintaas waxba ma jiraan. waxaan ku cadaynayaa waa gartay, xubnihii baarlamaanka aad qayb ka tahay sideed ku ogolaateen kalfadhiga oo aan la gaarin iyo waqtigoon idlaan iyo shaqadii la idiin igmaday oo aan dhammaan in kalfadhiga la soo xiro sideed ku ogolaateen? xiritaanka baarlamaankaasi beledkii aan kaaga jawaab wax laaluusha ama lacag gaara ay baarlamaanka qaataan male. xaquuqda baarlamaanka ay u hayeen la yihiin taasi waa taas. xiritaanka baarlamaanku anigu waxaan ka mid ahay xubnaha baarlamaanka. sharci in la xiray kama warqabin, baarlamaankuna kama warqabin, madaxda Hirshabelle iyo shacabkuna kama warqabin. taasi waxay gaar u tahay gudooga baarlamaanka. waa gartay, waxaad ku soo celcelisay inaadan baarlamaanka wax loolusha uusan qaadan, laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay in ka badan 56 xildhibaan ayaa mooshin ka keenay madaxweyne Waare. baarlamaanka ma uusan hor imaan oo kama uusan hor hadlin. haddaan lacag la qaadan halkii ugu dambeeyay mooshinka? ujeedku moosinku ma ahayn mid lacag ku salaysan, ma ahayn mid qof gaara lagu necab yahay. ujeedku baarlamaanka ujeedka uu mooshinka loo keenay kamid ayaan ahaa dadka keenay. wuxuu ahaa in la toosiyo waxyaabaha qaldan ama madaxweynuhu meesha ka baxo. taa bedelkeedii sida aad la socoto madaxweynuhu wixii lagu eedeeyay wuu qirtay. dowladda dhexe oo ay maamul goboleedyada hoos tagaanna waxay naga codsadeen in waxaasi wax ka saxayeen horumar badan la samayn doono. markii aan aragnay ujeedkii mooshinkana uu ahaa in Hirshabelle ay hore u socoto, horumar la helo, amni la helo, bedelkeedii haddii dowladda dhexna ay ballanqaaday madaxweynuhu
doorbidnay in mooshinkii aan dib ugu noqono haddii la helayo baahidii aan awalba mooshinka keentay ujeedku saas ayuu ahaa waa gartay laakiin siyaasadeed degenaansho siyaasadeed cadaalad horusocod ayaan doonaynaa ujeedkeenu intaas waaye wixii hadda dowladda dhexeeyey madaxdu ay ballan qaaday inay socdaan ayaan rajeynay haddii ay socon waayaanna waajibaadkeena wuxuu ahaa anaga toosin iyo kormeerin iyo howluhu say u socdaan inaan kormeerno haddii wax laga bedelo waa inaan tallaabo qaadno waa gartay laakiin sida ku qoran dastuurka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur hirshabelle haddii madaxweynaha laga keeno mooshin muddo ayuu ku hor imaanayaa baarlamaanka mooshinkii aad keenteen waxaa lagu dhameeyey xeer jajab baarlamaankii ma uusan hor imaan madaxweynihii arrimahaasi sow daliil cad uma aha in hal dhinac ay wax u socdaan taas micneheedu sidaas maaha mooshin marka la aqbalo ee madaxweynuhu yimaado ee lasoo noqon ayuu noqon karaa midaani wixii la ballan qaaday haddii horusocodka la waayo basigu waa la geyi karaa micneheedu saas waa laakiin soo maaha guddoonkii baarlamaankaa sheegay in aqbalay adinkii shir jira inaad qabateen waxaad tilmaanteen in mooshin aad gudbiseen haddana shir kalaa la qabtay oo madaxdii hirshabelle iyo xildhibaanadii ay isugu yimaadeen oo arrinkii waa laga noqday la leeyahay usu soo wada duubduub annaga waxaan doonayna hore waa doctor wasaarihii ayaa arrintaasi madaxweynihii soo farageliyey waxay ballan qaadeen inay hirshabelle badan ka qabanayaan bacdama wax aan tabanayna ay nabad la-aan waana aqbalnay maxaa yeelay hirshabelle waxay hoosagtaa dowladda federaalka ah ballanqaadkii madaxda sare ee hirshabelle u ballan qaadeen ayaa ku tanaasulnay waxaana doonaynay horumar ma nacbayn madaxweyneenu ma nacbayn goleenu wasiirno ma nacbayn dadkeenu ujeedkeenu waxay horusocod waxaan aqbalnayna waxay ahayd soo jeedintii madaxda kala duwan iyo federaalku waxaa ku bedelan amnigii horumarkii dib u dhiska laga shaqeeyo sida ay noo ballan qaatay xukuumadda dhexe madaxweynihii hirshabelle wuxuu gartay qaladkiisa inuu wax badan ka bedelayo sidaas ayaan mooshinka aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa daawadayaal xildhibaan daqare oo qayb ka ah xubnaha baarlamaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle oo iga warramaya arrimo ku aadan kalfadhiyada baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle xildhibaan aad u mahadsan tahay